Milkiile maqaayad ku taala magaalada Sinjar ee dalka Suudaan ayaa yiri, habeen habeenada ka mid ah anigoo dhex jooga maqaayadayda xilliguna yahay dayr, baan shaqaalaha cunnada kariya amray inay diyaariyaan casho aad u macaan loona kariyo si heer sare ah. Milkiilihii isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu yiri, markii kuwa cunnada kariya ay diyaariyeen cunnadii ayaa si lama filaan ah roob aad u xooggan inoogu bilowday, cirkii nagu madoobaaday, korontadii tagtay, nalalkiina waa dameen. Dadkii suuqa joogay waxay bilaabeen inay meesha isaga cararaan si ay guryahooda u gaaraan inta aanu roobka marinada iyo waddooyinka jarin. Markiiba faynuustii oo aanu kol hore diyaarsanay kaydna inoo ahaa haddii ay lacala korontadu tagto ayaanu shidanay. Muddo yar kadib aniga iyo dhammaan shaqaalihii waxaan isku afgaranay inaannu iska baxno marka ay xaaladdu degto, roobkana uu joogsada kadib, waayo dad casho naga iibsada waanu weynay. Waxa aanu xisaabinay khasaaraha cunnadii aanu samaynay. Maadaama ay cuntadu kaydsami karin, waxaanu ogaanay in khasaaruhu uu badan yahay. Milkiilihii maqaayadda wuxuu intaa ku daray, maadaama aynan bixi karin, roobkiina weli uu da'ayo, innagoo iska sheekaysanayna ayaa waxaanu aragnay humaag dhanka dukaamaha oo aan maqaayadda wax badan u jirin xaggooda ka muuqda. Waxaan soo qaatay faynuus iyo bud adag, waayo waxaan moodayay inuu tuug yahay, doonaya inuu dukaamada jabsado. Waxaan u dhowaaday humaaggii ii muuqday anigoo wata faynuus iftiinkeeda aan gaabiyey si aan la ii dareemin. Markii aan u dhowaaday waxaan arkay islaan wadata 2 carruura, iyadii carruurteeduna ay aad u tabardaran yihiin, daal ba'anna uu ka muuqdo. Intaan u soo yaro dhowaaday baan weydiiyey inay wax u baahan tahay in kale. Waxay tiri, aniga iyo carruurtuba waan gaajaysannahay, waxaan rabnaa cunto. Milkiilihii maqaayadda wuxuu yiri, cuntadii ugu fiicneed baan siiyey, xoogaa lacagna waan ugu daray. Islaantii aad bay u ooday. Waxaan weydiiyey, maxaa kaa oohinayaa? Waxay iigu jawaabtay, ninkaygii mar hore ayuu dhintay, maalintii 3aad baan aniga iyo carruurteedu gaajaysannahay. Waxaan heli kari weyne waxaan gaajada isaga bi'ino, iyada oo qabow iyo dhaxan inoo weheliyaan. Odaygii maqaayadda lahaa oo dhacdada ka sheekaynaya wuxuu yiri, in yar kadib islaantii waxaan ka maqlay iyada oo ereyo aad u qurux badan inoogu ducaynaysa oo leh, Rabbi ha idinka faydo murugada sidaad caawa aniga iyo ubadkayda murugada nooga faydeen, arsaaqadana ha idiin siyaadiyo. Waxaa niyaddayda ku jira xitaa haddii aanu caawa khasaarno, waa arrin uu Rabbi inoo qoray. Mu'minkuna naxariista Eebbe subxaanahu wa tacaala kama quusto, si kastoo uu khasaaro u soo gaaro. Roobkii aad buu u soo xoogaystay, isagoo dabaylo xooggan wata. Waxaannu isku diyaarinay inaannu xirno maqaayadda kolka uu roobka faydo. Innagoo xaalkaas isaga sugan baa waxaa si lama filaana u soo hor istaagay maqaayadda albaabkeeda gaari bas ah oo dad rakaab ah sida, garan mayna halka uu ka yimid. Darawalkii ayaa ka soo degay baskii, wuxuuna ina weydiiyey, cunto bisil ma haysaan? Haa ayaannu ugu jawaabnay. In ka badan 40 dad rakaab ah baa ka soo degay baskii, waxayna iibsadeen dhammaan cuntadii bislayd ee inoo taalay. Cunto kale ayaannu u karinay, xitaa rooti qalalan oo inoo hara ayay inaga iibsadeen, waxayna ku cuneen maraq iyo hilib karsan. Markii ay baxeen kadib, waxaan la fadhiistay shaqaalihii maqaayadda si aanu faa'iidada caawa aan macaashna u xisaabino. Mid ka mid a shaqaalaha oo la yaaban isbeddelkan degdega iyo faa'iidada faraha badan baa igu yiri, maanta ma camal wanaagsan baad samaysay. Milkiilihii maqaayadda wuxuu yiri, waxaan soo xasuustay ducadii ay islaantu inoogu ducaysay. Waxayna inoogu ducaysay, Rabbi ha idinka faydo murugada si aad aniga iyo ubadkayda murugada caawa inooga faydeen, arsaaqadana Rabbi ha idiin siyaadiyo. Isla markiiba Rabbi ayaan u mahadceliyey. Kadib roobkii oo da'aya ayaan baxay si aan u raadiyo islaantii carruurteedii, laakiin ma aanan helin. Kadib waxaan xasuustay xadiidkii Nebi Muxamed sallallahu calayhi wasallam ee uu yiri, sadaqadu ma nusqaamisa maalka. Qowlu rasuulillaahi sallallahu calayhi wasallam, maa naqasat sadaqatun min maal.